dagaalka uu ku soo qaaday Ruushka Ukraine ayaa haatan sii xoogaysanaya oo dagaalka Ukraine iyo Ruushka socdo ayaa haatan kolba dhinacay markaa u badlanaysa inay guulo gaadheen ay u muuqanaysa waxa jirtay markaas aad ku maqlaysay barnaamijkeygii hore in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee Ukraine ay ka fuliyeen gudaha Ruushka duqeymo xoogan shalay toole oo laba saldhig oo waaweyn ay weerareen isla maanta ayaa la sheegay in duqeymahaasi ay fuliyeen diyaaradaha droneska ee Ukraine inay markaas sii wadeen oo ay saldhigyadaasi gubeen waxaa la sheegayaa ilaa 3 diyaaradood oo kuwa dagaalka oo markaa Ruushku leeyahay oo saldhigyada fadhiyay in ay markaa diyaaradaha droneska markaa Ukraine ay gubeen sida oo kale booyado shidaal iyo markaasi hub kale oo markaa saldhigyadaasi yaalay oo Ruushku leeyahay ayaa la sheegay in cagta mariyeen haddaba waxaa la sheegayaa haatan sida oo kale dhinaca markaa Ruushku iyagu waxay beeniyeen in markaa saldhigyadaasi laga gubay waxaana sheegeen inuu shil ahaa markaasi ka dhacay aagaasi oo la jirin diyaarado drones oo markaa Ukraine ay leedahay oo soo weeraray markaa saldhigyada Ruushka dhinaca kale madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelensky ayaa haatan waxa uu booqday gobolada uu markaasi Ruushku qabsaday Luhansk iyo Donetsk gaar ahaan Donetsk ayuu markaasi booqday markaa deegaano ku yaala waxaanu sheegay haatan furimaha hore dagaalka inuu markaasi Zelensky uu joogo oo uu haatan furimaha hore ka dagaalamayo waxa uu markaasi Ukraine meesha ka saartay in dagaalku istaagayo amaba qorshaha ay haatan soo jeediyeen Ruushka ee ah in gobolada Luhansk iyo Donetsk loo aqoonsado marka dhul Ruushku iska leeyahay iyagoo taa bedelkeeda Ruushku kaga dhigay shuruud codsi kaga yimid dhinaca wadamada reer galbeedka oo marka ah in dagaalka la joojiyo gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Biden ayaa waraysi u bixiyay sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la yeesho madaxweynaha Ruushka Putin oo uu sheegay inuu kala xaajoonayo sidii nabad lagu soo dabaali lahaa Ukraine ee dagaalka u joojin lahaa haddaba dhinaca Ruushka ayaa shuruud waxay uga dhigeen marka hore reer galbeedku aqoonsadaan Luhansk iyo Donetsk inay ka tirsan yihiin oo ay yihiin dhul Ruushka ka tirsan laakiin Ukraine way diidan tahay marka in dhulkaasi loo aqoonsado dhul Ruushku leeyahay waxaana sheegeen in dagaalka sii wadayaan oo ay istifaacayaan dagaalka ayaa la sheegayaa daba haatan in uu markaas sii xoogaysanayo oo muddada qaboobaha oo barafku moogtay dhulkaasi aad uga da'o in dagaalku istaaga ayaa la saadaalinayay laakiin haatan waxay sheegayaan ciidanka Ukraine ama mas'uuliyiinta iyo saraakiisha Ukraine in dagaalka ay sii wadayaan xitaa baraf kasta oo dhaca Ruushka ayaa isaguna waxa uu fulinayaa duqeymo istaba jooga oo markaasi uu deegaanada ama magaalooyinka waaweyn ee Ukraine wili ka geysanayo isagoo oo beegsanaya goobaha energy-ga ama moogtay shidaal dhaliya moogtay korontada kaasi oo moogtay xitaa goobaha nuclear-ka ee laga dhaliyo xagga korontada ku sigatay in markaasi Zaporizhzhia inuu qarxiyo markaasi ay dirqi ku sigatay baa la yiri taasi oo hadii uu markaasi gubi lahaa goobahaasi nuclear-ka ay keeni karto masiibo xagga nuclear-ka inay aagaasi ka dhalato waxa hadaba sidoo kale haatan la sheegayaa in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama droneska Ukraine ay isticmaalaysa ay haatan farabaas ku hayaan ciidamada Ruushka oo markaasi awoodda kaliya ee haatan Ukraine ay haysato ama number 1 ka ah waa diyaaradahaasi droneska kaasi oo marka ay adag tahay in ay raadarada markaasi ciidamada Ruushka ay soo qabtaan waliba diyaaradahaasi habeenkiiba shaqeeyaan bal yiri Bayraktar TB2 oo soo saaro Turkiga ayaana safka hore kaga jirta hubka ay haatan ku dagaalamayso Ukraine ee ay guulaha ku gaadhay ama lagu mari laayahay dhinaca kale waxa jira hubka iyaguna ridada gantaalaha marka ridada dhexe iyo hub casri ah iyaguna reer galbeedku ay siiyeen Ukraine ayaa si kasta waxay haatan wacad ku martay inaanay dagaalka joojinaynin oo is dhiibaynin oo marka ay sii wadi doonaan ilaa iyo waxay sheegeen marka ay ka takhalusayaan Ruushka oo dhulka ka saarayaan Ukraine danka Turkiga ayaa uga digay Gariiga in uu Turkigu qaadi doono tallaabo military oo marka toos ah oo waliba weerar xoogan uu ku soo qaadi doono Turkigu hadii uu joojin waayo buu yiri marka Gariigu daandaansiga dagaal ee
haatan ay wadaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in haatan Greegu uu wado carin markaasi uu carinayo Turkiga oo isaga oo soo xiganaya markaa dowladtusyo military oo markaa 6 bishan December ay sameeyeen markaasi ciidanka Greegu kaasi oo ay ka sameeyeen jasiiradaha Rhodes iyo Lesbos oo ka tirsan markaa jasiiradaha loo yaqaan la isku yiraahdo Aegean Islands ama jasiiradaha Aegeanka kaasi oo markaa ay ku muransan yihiin Greega iyo markaa Turkigu. waxaana haatan uu markaa wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga hoosta ka xariiqay in Turkiga uu samirku ka dhamaaday. waxa uu yiri haddii nabadda iyo xeerarka caalamiga ah ay xeerin waayaan mas'uuliyiinta Greegu oo nabadda ay markaa dad u noqon weydo annagana wuxuu yiri markaa ka Turki ahaan nabaddu dan noo noqon mayso tallaabo kasta waanu qaadaynaa oo kaga jawaabayna markaa daandaansiga dagaal ee haatan ay wadaan Greegu. waa hanjabaadii ugu adkayd ee markaa ka soo baxda mas'uuliyiinta Turkiga kaasi oo ay haatan dagaal ugu hanjabayaan Greega. waxaana la sheegay haatan xiisadu in ay sii xoogaysanayso oo lagaba yaabo in ay dagaal isku bedesho. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu waxa kale oo uu ka hadlay wadamada Finland iyo Sweden kaasi oo uu sheegay in haatan siiba Finland ay waajib ku tahay in marka hore ay qaado cunaqabataynta hubka ee ay ku soo rogtay Turkiga kaasi oo uu sheegay in ay dan ugu jirto Finland haddii ay doonayso inuu Turkigu ka qaado codka diidmada qayaxan ee fiitooda ee uu kaga hortaagay yahay markaa in ay markaa Finland iyo Sweden ku soo biiraan xulafada NATO. waxaanu sheegay in ay waajib tahay in shuruudaha uu soo rogay Turkigu sideeda ay u fuliyaan. waxaanu sheegay haatan in ay Finland haddii ay doonayso markaasi inay ku biirtaan NATO ay daacad ka tahay in ay saaxiibtinimo la yeelato Turkiga ay waajib ku tahay in dhammaan xayiraadaha iyo cunaqabataynaha ay saareen markaasi Finland iyo Sweden 2018 markii moogtahay ay ku eedeeyeen inuu Turkigu markaasi ku xadgudbay xuquuqul insaanka iyagoo markaa taageerayay jabhadda PKK oo markaasi ay saldhigyo siiyeen. haddaba Turkiga oo ka faa'iideysanaya dagaalka oo haatan ku qaaday Ruushka Ukraine taasi oo cabsi weyn gelisay wadamada Sweden iyo Finland in iyaguna ku xigi doonaan oo markaa ay ka cabsi qabaan in Ruushku soo weerari doono ayaa waxay u yaaceen markaa dhinaca iyo xulafada NATO. Turkiguna waxa uu markaasi bilaabay in uu kala hor yimaado codka diidmada qayaxan bishii July ama bishii 7 ilaa 8 ee sanadkan ay ku jirno taasi oo sheegay inaan Turkigu ogolaanaynin inay ku soo biiraan xulafada NATO isagoo Turkigu ku eedeeyay wadamada Finland iyo Sweden in ay taageeraan markaasi wuxuu ugu yeeray Turkigu inay yihiin argagixisada oo uu la jeedo markaasi jabhadda PKK-da. haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu waxa uu maanta ka dhawaajiyay in uu haatan booqasho ku imanayo Turkiga 8 bishan ku jirta December markaa wasiirka arrimaha dibadda ee Finland oo markaa uu soo dhaweynayaan laakiin si shuruud waxa uu kaga dhigay si loo dhiraandiriyo markaasi ama hor socod loogu sameeyo in ay Finland ku soo biirtaan NATO waa in marka koobaad waxa yiri haatan cunaqabatayna hubka ay markaasi ay saareen markaa Turkiga ay ka qaadaan. haddii ay shuruudahaasi oofi waayaan Turkiguna markaa ma oofinayo buu yiri inuu ogolaado Finland iyo Sweden inay ku soo biiraan xulafada NATO.